saaka iyo mar kale xaaladda magaalada Laascaanood ayaa waji kala gashay ammaanka goobta shirku ka socdo ayaa si weyn loo adkeeyay haddaba yaa sugaya amniga goobta barnaamijka ayaynu ku dahqaadaynaa Somaliland ayaa dhankeeda ciidamo hor leh ku soo daabulaysa gobolka xaalka gobolka Sool ayaa mar kale waji kala yeeshay dhinaca kale waxay noo raaci doonaa warbixin uu qaalib baarid uu ka diyaariyay xudunta khilaafka warbixinta yoocadu maxadba mise waa geed ka mid ah geedaha gobolka Sool ma gobolada waqooyi oo midooba ayaa qiimo badan mise Soomaaliya oo midooda xildhibaanada Somaliland ee federaalka ma iyaga madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kaga horeeya sheegashada magaalada Laascaanood mise Somaliland iyo SSC ma isfahmi karaan mase waxay u baahan yihiin cid u kala dab qaada qof u kala turjuma qadiyadda ay kala sitaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ma gudanaysaa waajibaadkeeda mase way laba afleyn oo cid waliba dhankeeda ay u qancinaysaa beesha caalamku ma garnaqsadaan mise kala qaban doonaan dadka SSC iyo Somaliland Laascaanood ma waxay ku jirtaa maalmo degan duufaanta soo socota ka hor qodobadaas iyo qodobo kale aynu barnaamijkeena caawa aynu ku dul istaagi doonaa hayeeshe daawada intayna barnaamijka u guda galin hadda channelkan ku cusub tahay Alhays Media subscribe sa muuqaalkana like gare ku soo dhawaada barnaamijka Laascaanood xarunta gobolka Sool iyo maanta xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waji kala yeelatay kadib markii uu shalay soo gaaray garaadkii ugu dambeeyay garaad Maxamed Garaad Abshir Laascaanood mar kale ayay foolanaysaa shirka ayaa saaka ka bilowday guriga garaad Jaamac Garaad Ismaaciil shirka ayaa socda goobta shirka ayaa si weyn loo adkeeyay waxaa ilaalinaya ciidamo culus oo deegaanka ammaanka magaalada waxaa gacanta ku haya ciidamada deegaanka iyo shacabka iskaashanaya isu socodka gaadiidka ayaa yar goobaha ganacsiga waxbarashada ayaa muddo bila xidhan Laascaanood xarunta gobolka Sool waxa hareeyay dagaalo iyo mudaharaado looga soo horjeedo Somaliland Laascaanood xarunta gobolka Sool tan iyo sanadii 2007 markaasoo militariga Somaliland ay kala wareegeen Puntland gacan ku haynta gobolka Sool tan iyo sanadkaas Laascaanood waxaa lagu dilay guud ahaan bahal doorkii gobolka kuwaas oo aan la garanayn cid shay sida ay sheegaan laamaha ammaanka ee Somaliland shacabka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa uga cadhooday dilalka kadib mudaharaado shacab ayaa sababay in militariga Somaliland rasaas nool u adeegsadaan shacabka taasoo iyana keentay in shacabku hubkooda qaataan una dagaal u dhex maro kana dhex qarxo militariga Somaliland iyo shacabka magaalada Laascaanood taasoo sababtay militariga Somaliland ay ka baxaan magaalada isimada dhaqanka ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa ku soo qulqulayay Laascaanood shirka ayaa bilaabmay waxa halka ka muuqda waa guryaha magaalada Garowe caasimadda maamul goboleedka Puntland waxa iga dambeeya waa kantaroolkii magaalada waxaan fadhiyaa geed uu tuuta u yahay cimilada deegaanka markay barwaaqo tahay waa cagaar markay abaar tahayna waa qallayl weeke geedkani had badan iyo dhaaf midna ma leh balse waxa ku duugan amuro culus oo ka mug weyn muuqaalkiisa geedkan waxa la yiraahaa yooco tarankiisu ma badna waa halka dadka aaminsan qadiyadda Somaliland xadkoodu ugu suntan yahay madaxda Somaliland kuma jiro mid kor istaagay geedkan shacabkuna waa fara ku tiris hase ahaatee xadka yoocadu waxa uu raacay qulubta dadka aaminsan gooni isitaaga xadka Ingiriiska iyo kii Talyaaniga noo dhaxay ninkii loo taag waayana dawaa surnaha halkii kor abadana hadii aan leeyahay dadka deegaanku ma aaminsana in xadku yoocada maro haddii uu mari lahaana waxay u arkaan geed deegaankooda ku yaal dalkayaga iyo deegaankayaga
iyo masiirkayaga hargeysa looga talin maayo soomaali baannu nahay soomaali baannu ahaan doonnaa dhiiggii awowyaashayo bilaashu muusan daadan haddii ay qadiyadda maamulka somalilan lahaan lahayd agab diimeed waxaa kabca u noqon lahaa geedkan waayo waxay ku dullaaleen aayahoodii mustaqbalkoodii iyo ictiraafkii ay raadinayeen waxa ay dadka SSC ka aaminsan yihiin midnimada Soomaaliya iyo calanka waxaa lagu soo koobi karaa erayadii Cabdi Iimaan arafada kolkii lagu tukaday ciida faraxeeda udgoonkii axada loo qalay ee lagu istareexayay albaabkii kabcada agabkii saarnaa baan kugu mataalaa qadiyadda SSC iyo tan Somaliland marka laga tago qabyaaladda waa qadiyadaha Soomaalidu isku hayso tan ugu guunsan maanta qof waliba meel buu ka taagan yahay marka laga reebo xildhibaanada Somaliland iyaga mar waa u dhaar iyo midnimo marna sheegashada laascaanood iyaga Muuse Biixi kaga horeeya anigoo ah xildhibaan ka tirsan gobolka Sool ee magaalada madaxdiisa hadda dhibaatadu ay ka dhacday mar kale dadka deegaanka ee ka shiraya aayahoodu waa gacmo shisheeye marka gacmo shisheeye oo dadka target gareynaya inay ku jiraan ayaan aaminsanahay xalinta khilaafka qadiyadda Somaliland iyo tan SSC waxay ku xiran tahay in la fahmo waxa uu ku salaysan yahay awalan marka ugu horeysaba waxyaalaha taariikhda ah waa horta caqiido u noqda dadka deegaanka ku nool ama SSC iyo dadka Somaliland la yiraahdo iminka mabda'an wata horta awalan taa ay iskaga hor imanayaan taariikhaha dadka deegaankan ay leeyihiin awoyaashooda ay u soo sameeyeen iyo taariikhaha dadka deegaanka waa horta number 1 judgment isku ah carqalada oo iska hor imanaya deegaankan horta ama Somaliland wuxuu u bixiyay Ingiriisku markii uu gumaystuhu yimiday dadka deegaankan horta dagaal bay la galeen wayna ku leeyahay saddex meelood markii la yiraahdo meel kamida horta way ku dhimatay Ingiriisku amarka ha bixiyo oo dadka leeynaya Soomaali bay ahaayeen waliba dadka deegaankaas bay ahaayeen ma jirin markii 60kii xorriyadda la qaatay wiil iyo awowgii iyo aabihii oo deegaankan kamid ah oo calanka si xorriyada u wada arkay sidaas oo ay tahay baan haddana annagu oo jiilkii dambe ah baan haddana cuqdad ugu qabin taariikhdaasina ay mudan tahay in la xuso 60kii markii xornimada la qaatay walaalaha reer waqooyi iyagu 60kiiba waa saluugeen waxa isku dayeen afgambi dhicisoobay kadib waxaa timi aftin ah in loo codeeyo dastuurka dadka deegaankan way u codeeyeen walaalaha reer waqooyina waa diideen kacaankii markii uu dalka qabsaday walaalaha way kaceen wayna ku kaceen dawladii kacaanka ayaga oo ka cabanaya kana dhib sheeganaya dhibka maanta aanu annagu ka cabanayna iyaga kadib way ka dhiidhiyeen waxaan ka soo gaaray khasaare ba'an dhibaato iyo dil haddaynu taariikhda dib ugu noqono Somaliland waxay ku dhisan tahay cunfigii iyo caadifadii waagi kacday iyagoo markii qabiil ahaan ka diiday oo ku dagaalamay oo waagi tacaddigii wixii ay sheeganayeen bay Somaliland maanta ku taaganta ku dhisan tahay taa mid la mid ah maanta deegaanadani ka taaganta nidaam ahaan iyo mabda ahaan waxay u dhisan tahay dad gaar ah oo waliba aaminsan inaan annagu cadow u nahay hase yeeshee waxay iyagu qaadan waayeen maanta dadka deegaankan qaadan maayaan ismaandhaafka dhex yaal Somaliland iyo SSC ma yahay mid ay gudahooda ka xallin karaan mise waa ismaandhaaf oo waxay u baahan yihiin turjumaano u kala gar qaada way xaq koowaad waxa weeye waa in ay Somaliland isku dayaan inay dadkii la heshiiyaan oo ay la hadlaan oo ay afgarad sameeyaan taasina waxay ku xirantahay dadkii la heshiiyaan dadka shacabka marka ka timaado dadkina ma rabaan waa dad Soomaalinimo ku dhimanaya waa dad Soomaalinimo doonaya iyagu waxay rabaan inay Soomaali kala goodo anagana ay nagu hoggaansadaan anagana taa diyaar u manay mar walba Soomaali ka go'aymayno Soomaali ma una is afgaradka labaad dhici kara waxa weeye ee anagu aan rabnaa Soomaalimida nabada wada jirta calanka buluuga sita inay nagala mid noqdaan oo ay nagula jiraan taasna iyagu ma doonayaan suuragal noqomayso hore uga go'een kaana markaas waxaan taaganahay inay taana gula biiraan iyaguna waxay rabaan inay Soomaali ka go'aan naguna khasbaa inaan ku hogaansano waxa iyagu doonayaan go'itaankooda anaguna taa diyaar uma nihin mana doonin way xalka saddexaad ay rabto in Soomaaliland miciibdo sida Soomaaliland ka go'aa inay dagaal qaado
ee uu go'aansay Muuse Biixi ama ku hogaamin doono inuu dagaal qaado waxay sababaysaa burbur dil anaga markasta deegaanadii anaga iska leh mowqifkayagii Soomaalinimo marna waxba iska bedeli maayaan anaga ku dhalanay anagana ku dhimanana waxaan u aragnaa duulaankana lagu soo wado argoosi iyo ciilqab haddii cid xoog lagu haysan karayna iyaga la haysan lahaayo dawladna siyaad baraa ku haysan lahay xoog sida yoocada dawladda Soomaaliya ma aha mid har badan waxa ku maran geeda badan waxa hoos yaala qodxo tira beel ah hase yeeshee maxay ka gashay xalinta arinta laascaan assalaamu calaykum dhammaantiin walaalaha Soomaaliyeed dhammaan dadka hamiga sare leh ee horumarka jecel waxaan jecelahay inaan la wadaago fursad ganacsi oo ay ka faa'iideysan karaan gaar ahaan dadka dhaqaale aad u yar haysta ma doonaysaa adigoo gurigaaga jooga inaad iibiso badeecooyinka shirkadda afraad ee ugu weyn waddankaasi Mareykanka ma tahay shaqaale laga rabo masruuf kira guri fii waxbarasho iyo qarashaad kale oo warwar iyo dhibaato kugu haya fadlan shaqo ka bilow kambanigan oo la shaqee kambaniga afraad ee ugu weyn waddankaasi Mareykanka iibi badeecooyinka shirkaddani soo saarto managerada guud ee shirkaddan u qaabilsan qoomiyadda Soomaalida ayaa fudaydisay in kambanigan ay ka shaqeeyaan Soomaalida qurbaha iyo kuwa dalkoodii hooyo jooga manager Sacdiye Xirsi ayaa sanadkan 6 bilood ee soo socda u qoondaysay inay si toos ah u diiwaan geliso oo uga shaqeeyaan kambanigan cadad gaaraya 600 oo qof oo ku biiri doona shaqaalihii sanadkii hore ay diiwaan gelisay manageradu haddaba daawade sidee uga shaqo bilaabaysaa kambanigan kow marka hore waa inay kaa go'an tahay inaad shaqo tag tahay waa inaad tababarada ay manageradu kuu qabanayso xilligeeda aad uga qayb gasho si lagu baro qaabka aad u shaqayn lahayd waana inaad tahay qof sumcad iyo maamuus ku dhex leh bulshadiisa iibina kara productyada iyo badeecooyinka shirkaddani soo saarto waana inaad qaadato talooyinka iyo macluumaadka ama sharciyada shirkaddani Sacdiye Xirsi ah hooyo Soomaaliyeed oo degan dalka Mareykanka ahna managerada u qaabilsan qaybta Soomaalida ayaa kaa caawin doonta wixii macluumaad ah iyadoo afkaaga hooyo kugu baraysa kuna tusinaysa sidaad u shaqayn lahayd waana Sacdiyo oo kugu xidhaysa tiim kula shaqeeya oo kula wada shaqada kuwaas aad isku goob joogtaan ama aad kala wadan joogtaan ama kala magaalo intaba haddaba daawade si aad u hesho macluumaad dheeraad ah fadlan wac nambarkan WhatsApp ee shashada kugu qoran adigoo marka hore fariin cod ama qoraal ah u diraya managerada oo uga warbixisay bulshada Soomaalida qaabka u shaqeynayaan iyo sida u diiwaan gelinayso iyo waliba waxyaabaha ay ku gacan qabanayso waa tan managerada oo fariin cod ah u soo dirtay qaybta warqabadka Helais Media السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha sharafta leh Soomaaliyeed meel walba aad ku sugan tihiin waa walaashin Sacdiye Xirsi oo idin dhahaysa ku noolaada nabadgelyo iyo caafimaad intaba bacdal salaan waxaan maanta rabaa inaan isla eegno fursad ganacsi oo aniga ii anfacday adigana ku anfici doonta walaalo badan oo Soomaaliyeedna noloshoodii wax badan ka bedeshay oo aniga aan ka mid ahay intayna horta u guda gelin fursadda ganacsi waxaan rabaa inaan isla eegno waxaa jira dad badan oo jecel in ay business bilaabaan qaarkoodna ayba bilaabeen business in qaybta bilowday businesska waxa laga yaabaa businesskooda inay ku guuleysan waayeen waxaan dhihi karaa laba siyaabo ayaa ka mid ah siyaabahay ugu guuleysan waayeen kow waxaa ka mid ah in ay meesha ay ka fureen aan ahayn meel ku habboon businesska midda labaad oo ah alaabta iyo waxyaabaha ay iibinayaan aan ahayn waxyaabo suuqa iyo cid walba u baahan tahay oo suuqa leh waxyaabo aan suuqa ku soconaynin ayaa laga yaabaa oo qof walba aan u baahnayn ayaa dhici karta inuu ahaa waxa kaloo laga yaabaa walaalo badan oo Soomaaliyeed oo jecel inay shaqaystaan oo business furtaan laakiin haddana cabsi ku jirto laga yaabo inay isleeyihiin oo ka cabsanayaan lacagta ay ku bilaabi doonaan investment inay geliyaan business lacag badan inay ku furaan taasoo keeni karta inay dib oga dhigtaan businesska ay bilaabi lahaayeen
haddaba aniga Saacadiye Xirsi ah oo maanta adiga kula hadlaya waxaan ku hayaa business ka duwan waxyaabahaas oo dhan business aan kaaga baahnayn inaad lacag badan investment geliso oo lacag badan ku bilowdo business aan kaaga baahnayn inaad meel u furto oo meel intaad u furto aad qarash isgeliso business aan kaaga baahnayn inaad waqti badan geliso business kan aan hadda aniga ku hayo oo ku soo bandhigayo waqti badan kaagama baahno waxaad ka shaqaysan kartaa business kan adigoo shaqadaada haysto waxaad ka shaqaysan kartaa business kan adigoo gurigaaga iyo familkaaga la jooga oo gurigaaga jooga waxaad ka shaqaysan kartaa business kan aan ku soo bandhigayo adigoo waxbarashadaadii wata oo arday ah oo waxbarashadaadii ku jira haddaba faahfaahin intaa dheeraad ah haddii aad u baahan tahay faahfaahin intaa ka dheeraad haddaa u baahan tahay businesska sida looga faa'iideysto waxyaabaha aad ka heli doonto sida oga ganacsan karto intaan warbixin ka dheeraada si aad u hesho fadlan igala soo xiriir telefoonka shaashada ku qoran ama ku soo dhufo linkiga description-ka yaala haddii ilaahay idinka ka dhigo waxaa idin leeyahay see you